waxaan ku soo dhaweynayaa Amiir Maxamuud oo noo soo afshari doona xafladda haddii aan la yiraahdo hadalladii ay noo joogaan ee dhammaan marti sharafta waxaan ku salaamay dhammaan salaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. horta duco waa intuu duceeyey adeer maanta laga taaban maayo duco waa intiisa ilaahay noo aqbalo qof ka dambeeyo ducaynaya ma jiro ilaahay noo aqbalo subxaanahu wa tacaala ilaahayna waa ka aqbalayaa waa nimaan aqaan weeye daadadiibu ku jiraa cibaadadiibu ku jiraa samafal iyo khayr buu ka shaqaynaya intaas ilaahay waxaan ka beeray ducadiisa noo aqbalo intaa ka bacdi xoogaa cududaar baan leeyahay xoogaa kiniiniya meelaa ku laqeeyo xoogaa safar yar oo soo galay kelmadeyda waxaan siinayaa nin gaarsiin kara ceelka iyo muhiimaddiisa iyo wixii deegaankaa laga soo maray nin sharaxi kara oo sheegi kara waxa weeye waa caaqil cabdiqani bedel khalaf oo guddoomiye ka ahaan jira carrigan oo dhan saas soo maha waana gaari karin waana xoogaalnimadeeda ka fog buu gaari karaa mar haddii aan ducaynay oo ducada adeerna aan saxiixnay kelmadda dhammaystirkeeda waxaa siinaya caaqilka beesha awalna guddoomiyihii deegaanku ahaa gudoomiye soo dhow degmada Galxamur ay guddoomiye ku-xigeen ku horeyso madaxa arrimaha xisbiga hoggaanka nabadgelyada ama kaariga rugcadaaga odayga oo deegaankan ah ama kaariga waxaa la oran jiray waagii ugu dambeysay ama kaariga bari baa la oran jiray marka bari oo dhan safe area oo dhan ama kaarigeedii ah guddoomiyaha degmada Bursaalax dhammaan tiimka badbaado oo halkan ay ka joogaan Cabbaas Cali Kacaan iyo Xuseen Aadan Seed guud ahaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan u malaynayaa hadalka kelmadihii munaasabka ka ahaa meeshan waa odayaashii waxgaradkii hore oo soo jeediyey wixii haatan duca ahaydna amiirka iyo ama kaarigu waa duceeyeen kolleyda mikrofon amiirku igu soo dhaweeyey ma diidi karo marka mar haddii la magacaabay inaan kelmad igu aadan aan ka yidhaahdo waa munaasab intaa bacdigeed runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka maanta xarigjarka ceel biyoodkan oo qof walba xasuusto kolley dadaalkii loo soo maray iyo dadaalkii dheeraa ee dalya dibadba laga galay in deegaanka dhammaantii la gaarsiiyo ama biyaha laga haqabtiro xaqiiqiyan waxaan isleeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa mahad ballaaran leh ilaahay ka sukow tiimka la yidhaahdo badbaado group oo runtii dalya dibadba isu xilqaamay iyadoon cid abaabushay iyo cid fandhi siisay iyo cid miisaaniyad ku siisay iyo cid dhabarka ka soo taabatay midna aysan jirin inay dadkoodii iyo deegaankoodii ama Soomaaliya ha noqoto ama deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ha noqoto inay horumarka ballaaran inta tira leeg ay u istaagaan oo jeebkoodii furay oo dadkii ku abaabulay waxaan leeyahay runtii mahad hadday qiimo leedahay badbaada iska leh marjiceedu ay u horeeyaan cumdo waayeel jaacan barre xaashi sheekh maxamed sheekh cismaan guddoomiye mahad daahir iyo dhammaan ragga kale akhyaarta ah runtii la shaqeeya iyo ragga kale haatan gudaha hawsha ka wada oo Xuseen Aadan Seed iyo ay u horeeyaan iyo Cabbaas Cali Kacaan runtii waxaas oo dhanna waxaan isleeyahay waxaa laf dhabar u ah oo hawlahan inay gudaha ka dhaqdhaqaaqaan laf dhabar u ah Amiir Maxamuud Yuusuf Ciise oo runtii u istaagay inuu hawlahaas dalya dibadba ka shaqeeyo markii horena dadkii fikradaheeda iyo abaabulkeeda lahaana ka mid ahaa duubkii guudaha daysimada iyo dadkana ahaa runtii waxaan leeyahay isaguna wuxuu leeyahay arrinaan marna la hilmaami karo dhammaantiin ay tahay inaan ku xasuusanno kuna bogaadinno taas marka ayadan intaasaan ku dhaafaya intaa bacdigeed kolley hadalku waa iska gabagabow waxaan rabaa markan yarnaa taabto horta noloshu ahamiyaddeedu waa biyo deegaankan hadda aan joogno qof kasta uu ka warhayaa taariikhuhu soo maray adeer maxamuud samatar baa runtii aad iyo aad u faahfaahiyey marxaladihuu soo maray noloshuna biyo kama maaranto biyahoodii noloshu waa isku tiirsan yihiin biyo la'aanteedu waa nolol kama jirto meeshaasi marka runtii arrintaas farxad weyn bay qof walba maanta halkan jooga ama deegaan ahaan reer dudun u tahay si guudna waxaan leeyahay mahadnaqa runtii aan isleeyahay kaalintaada ha ka reebin waa dowladda deegaanka Soomaalida oo ay u horeeyaan maamulka degmada Galxamur oo santarka dudun uu hoos tago iyo guud ahaan xukuumadda maanta ka jirta deegaanka Soomaalida oo madaxweyne Mustafa uu garwadeenka ka yahay oo qof walba xasuusto inaysan shalay jirinin horumar isku tashi shacabku ku samaysto in deegaanada laga fuliyo adeeg badan iyo qalafsanaan badan ay jirtay marka taas dadkii iyagoo wax qabsanaya shalay aysan runtii aysan jaanis u heli jirin waxooda ay dhulkooda gashadaan marka jaaniskaas jaanis shalay jiray ma ahan ayadana maartay xukuumaddaana waan uga mahad celinaynaa waa arrin runtii
ay tahay mar kasta in meel kastana laga sheego amniyadeedana iskale intaa bacdiga deegaan ahaan waxaan isleeyahay in si balaaran loo ducaysto oo loogu albaryo ceelkaas oo ceel Soomaaliyeed uu noqdo oo dhammaan cid kasto ama socota ama deegaanka joogta ama deegaanada dhow oo dhan oo manaha inay ka wada faa'iideystaan runtii waxaan isleeyahay waa arrin muhiim ah oo tiimka ama guddiga ceelka gacanta ku hayaan ay si sharaf iyo karaamo leh dadka u soo dhaweeyaan oo uu noqdo wax maartay waqaf oo aan ummadii laga xiginin arrinta maadaama wax Ilaahay nagu guuleeyeen ay tahay biyana ay tahay hada biyo kula xayrataan la iskana soomi karin la iskana gadi karin marka taasna in deegaanka balaaran marka loo eego ay ku xeeran tahay dudun waa jaanis ay meelaha kala dheertahay heshay marka intaasna alxamdulillah rabbil caalamiin la yiraahdo dadkan la soo dhaweeyo ama dadka martida ha noqoto ama dadka socotada ha noqoto ama dadka kale oo deegaanada dhow oo manaha aan nasiib u helinay maanta ceel helaan taana marka waxaan leeyahay ka reer dudun ahaan inaad dadka aad si gacmo furan ku soo dhaweysaan waa muhiim deegaan ahaan inaad ilaashataan hantida inta la eg oo lacagta inta la eg oo tirada badan ay gashay oo qof jeebkii iyo dad sixil qaamay jeebkooda laga soo ururiyay markasta inaad u ducaysaan Ilaahay inuu ajri xasanaadna ka siiyo runtiina aad xasuus mar walba aad u yeelataan waa arrin muhiim aan isleeyahay dadkii khaasatan hawlahan abaabulkeeda lahaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad Ilaahay uga weydiisaan Ilaahay ajri xasanaad inuu ka siiyo miisaanka xasanaadka ugu daro marka guud ahaan anigu waxaan leeyahay badbaadana leeyahay isku tashiga balaaran oo bulshadu ay wado in la sii laba jibaaro oo kaliya inaan hadda la oranin badbaada inoo maqane badbaada dadaal fiican waa wada laakiin gudihiina in la iska xilqaamo u baahan yahay dadaalka badbaada wado dadaal maaragtay lagu garab qabto oo wixii la hayo lagu taageero oo horumarka la sii balaariyo ummaddu hadday tashato waxaysan qaban karin lama arko kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan waa la dabooli karaa dadku hadduu tashado oo jeebkooda waxa ku tashado uu huro xag Ilaahayna dad sadaqa ay u tahay xag adduunna hadday intifaac fiican bay u tahay marka hadalka aad baan ugu dheeraaday mar labaad iyo mar saddexaad ba dhamaantiin waa idin mahad celinaya sida fiican looga soo qayb galan khaasatan amiirku hadda kalimaadkan ugu soo dhaweeyana si gaar ah ugu mahad celin salaamu calaykum يحيى وبلا وحير كذي وحير حرقه قبصه مركه هرت ما شاء الله ما شاء الله